bulsho waxay qaanataa wax kastaba ka toosta dhigsata asage bulsho waxay qaanataa wax kastaba ka toosta dhigsata markuu hana turxani yahay talawaadenkii uu ku hawo tusmiyo qariib tusmiyo qariib wallaahi dadkaygo reer muqdisho talo rabid waayaydi tasiila xigaanaga nafta horumarkeeda taageera weligii kabid taageera weligii kabid الرحمن الرحيم الدنيا دستدي هدي بديب كلو آسي آذن هدو دقاقي دوب لغا أومي حاو ديكيسا هدي لوغا ديغا أوري وبدكي دلايين هدي دي فلوغو إيغو دقاق الدنيا سومي هين دلنتينا قرمت كان درارتي هرسين دحانت الليل كيا براها وحنو ديغيس وحدي ديل مايا آرميغا كوان ديغينو ديكو ugadaato dhamaya sarkaal guutuu dhigan dhaawacyo geeri nacas dhoofay geesiga dhibani mid ma dhibacyo taariikh leh ciidamada dhufaysyada galaa dhibacyo taariikh leh dhulka iyaga xureeyaha dhibacyo taariikh leh calanka kuwii dhaliyayaa dhibacyo taariikh leh dhalintooy adduunyada adaa dhidibyo tiirkeeda dhibkoo loo horseedaya dadkaad dhiiri gelisaan dhaxanta iyo qabowgaan midkiin dhinacu seexayn lafta dhabarka oo aadniga laga dhisaa weeye idibada dhaqaaqaya gacnaha dhinac walbuu fiican dhegta maqalka dhaayaha arkoo dheeman iyo luula dhulku wuxuu la doodaa ninkaan dhidid ku daadayne sanadyaal haddaan lagu dhibtoon buugga dhigidiisa jaamacow dhigtaa iyo haddaan gobol dhigtoor gaarin dhakhtar daawo sheegaya cilmigaa naga dhinnaahaya warshadaha dhammaadaya kuwaan weli dhisaynaane ubadkaan dhalayno wadaa dhaxal u yeelaaya taariikhdi dheereed haddaan dhinac walbuu eegay dhayo laguma keenine maxaa dhagax la tuuriyeeya calanka dhalaalow maxaa dhibo lagaa maray dhalintii iswaayeel hadday dhuuqsan maradeeda midow dhaawac gaaraya haddaan dhiigga lagu daadin geesiyo dhammaadaya mayd ka dhicin goobti gobonnimo dhammaysaya miyaan dhali lahayn guusha dhaqaalaha dalkeenna kuwa hoos u dhigayow sirwaalada dhagtaya kuwa kobaha dheerow diracyaasha dheerdheer kuwa dhinacahaayo dhexdoo lees qabsaayo kuwa jeeska dheelow warka kaan dhahaynaya kuwa hadalku dhaafow kuman idin dhaliilaan aanugu dhex yaacayo dharkii aan samaynaya haddaan dhiishi iyo haanti timahaanyi dheer ay dhabarka gaarsiino dheragaya fandhaalkaya haddaan xeero laga dhowrsan dhab iyo ulub haddaan soo dhisno beerti dhinackeeno dhaqankaayo soomaaliyeed soo dhammaan maaha munaasabadan ilaahay baa mahad iska leh namakan siiyay inaan halkaan anagoo nabad qabna oo qurux badan oo maxaan ku yiraahdaa faraxsan aan galabta isugu nimaadno munaasabadan macnaheedu waxay ahayd toddobaadkii xorriyadda bishaan oo dhan waa maalinta xorriyadda
toddobaadka xorriyadda ayaanu maxay ta ku jirnaa waxaa kale iyo isdhexgalka bulshada labadaas macno ayay leedahay munaasabadaani toddobaadka xorriyadda waad ogtihiin maalintii 26 juun maxaan ku yidhaha 27 oo maxay ta saaxiibadeen ama Jabuuti ay xorowday 26 oo ay xornimada heleen gobolada waqooyi kowdii luuliyo oo gobolada waqooyi iyo Israaciil labada gobol intaas oo dhan waxay ku soo aaday weegaan hadda aanu ka soo gudubnay waa toddobaadka xorriyadda ayaanu ku jirnay waa soo dhaweynay waa u dabaaldegnay iyadoo heer qaran ah waxaan anaguna go'aan qaadanay haddaanu nahay maamulkii Boondheere degmada Boondheere inaan anaguna doorkeena ka qaadano anagoo shacab iyo maamulba leh inaan dhahno ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaba hambaliya aan dhahno laguma helin maxaan ku yiraahdaa xorriyadda jiif laguma helin baryana laguma helin waxaa lagu helay dhiiga u daatay xool maara u baaba'ay nafa u go'day waa ogtiin gabdhaha Soomaaliyeed dahabkooda iibiyeen xabsiyaday ku dhaleen intaasna waxay lahaayeen waxay u aayayeen naftooda ay u dhimanay u dilaayeen oo dahabkooda u iibinayeen nacamiin maxaan ku yiraahdaa ilmahoodu ay bari xornimo ku noolaadaan injiilka ka dambeeya xornimo kuma noolaado in ummadoodu xornimo ku noolaato ilaahay baa nasiiyay alxamdulillah 57 guuradii waxa waaye xornimadii Soomaaliya ay ka soo wareegtay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogta hambaliyo gobolka Banaadir hambaliyo gobolka Boondheere shacabka Boondheere waxaan leeyahay hambaliyo waxaa muuqato in aad dib u hesheen dowladnimadii aad rabteen waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo in xafladaha ka dambeeya ay noqon doonaan kuwo midaan kasii xoog badan madaxdan ka badan ay imaan doonto waxaan si gaar ah idinkaga codsanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaad haysataan madax ku fiican hogaaminta hadday noqon lahayd dhinaca MCH-ka oo ah MCH-da magaalada loogu waxtarka badan yahay hadday noqon lahayd dhinaca nadaafadda hadday noqon lahayd dhinaca amniga Boondheere waa magaalo soo baxday oo aan la qari karin waxaan rabnaa in lagu day bulsho waxay kaana haddaa wax kastaba ka toostaa higsata bulsho waxay kaana haddaa wax kastaba ka toostaa higsata
وابنكي وكهو تسمي قريب